jubbaland iyo madaxdeeda gaar ahaan madaxweyne axmed waxaan ugu hambalyaynayaa martigelinta ballaaran ee ummadda intan la eg oo isu timid ay u fidiyeen iyo sidii quruxda badnayd oo nolol soo dhoweeyey aad baan labadaba uga mahadinta iyo soo dhoweyn taa marka laga tago anigu waxaan sugay markay dhalanaysa caaway haddaan qiyaasno waa 12 jir puntland dhul weyn iyo deegaan weyn bay haysataa waan qiyaasahayay in jubbaland ay horumar ballaaran ku dhaqaaqi doonto oo daadejinta xukunka iyo resourceska labaduba faa'iido ay keeni doonaan waan qiyaasayey waana muuqataa weliba sidaan si ka badan oo ka dheeraysa yaan u qiyaasayey waxaananse marnaba aanan qiyaasayn jubbaland inay gacan u fudin doonto dowladda federaalka oo marka laga shakiyo dhallinyaradu waxay tidhaahdaa guri baa ku dumay soomaaliya in guri ku dumo marka laga shakiyo inay shir intaan la eg inta isugu yarto dhahayso war aayihiinna ka tashada war meeshaa nabadda ah si sharaf la ugu soo dhowaada war wixii aynu yeeli lahayn aynu yeelno aynu ka tashanno runtii waa qiyaasahayey inay tooda ku fillaan doonaan laakiin intay toodana ku filloodaan gacan inay u fidiyaan dowladda dhexe iyo ummadda soomaaliyeed waa sharaf waa u hambalyaynayaa waana bogaadinayaa in looga daydana waa tilmaamayaa oo gobollada kale insha allah middaan oo kale mar damban inaysan nagu dhicin baan rajaynaynaa laakiin adduun weeyo wax kastaa iska yimaadee waa ku ammaanaynaa sida jubbaland ay u gudatay waajibkoodii sida ay u garteen soomaali markay khatar gashay inay ayagu gacan u fidiyaan waxa weeye wax wanaagsan dhanka kale waxaan leenahay xukunka oo federaal la geliyo oo la dedejiyaa tanoo kaley leedahay haddii aynu markii jubbaland dhalanaysay wax kasta aynu si kale u arki lahayn maanta wax gacan noo fidiya waxna soo dhoweeya wax maaragtay noo fududeeya inaan go'aanadan gaarno u malayn mahayo inaan heli lahayn tillaabadaas aan qaadnay annaguna waa isku bogaadinaynaa jubbalandna waannu ku bogaadinaynaa taa marka waxaan halkaas arkaynaa federal systemka sida uu faa'iidada u leeyahay iyo ciddii ka walwalsanaydow haydinka baxdo waxay noqonaysaa system isdheelitira oo haddii odagu qarqaryoodo gacanta la qabanahayo haddii dowlad goboleedka wax ka jiraanna talo iyo taakulayn iyo gacanqabadba la siinayo maantayto ilaahay wuxuu ku guuleeyey jubbaland inay soomaaliya gacanta soo qabato inay fursad ay ku tashato siiso in aynu kulligeen halkan inta isugu nimaadno war muftiyeedkii dhammaystiraayoo isfasirahayay aynu soo saarro sidaa la adligeed waan hambalyaynaynaa go'aanka jubbaland oo ay ku martigelisay hawshan waa hambalyaynaynaa soo dhowaynta iyo garashada badan waana ku faraxsannahay runtii wax walba sida ay u dhaceen iyo sistamka dowlad dhiska oo aynu qaadannay oo ah in maantayto haddii federal systemkii la saluugay jubbaland oo kale ay gacanta soo qabato ay leedahay ha laga badbaado taa marka aan ka baxo waxaan rabaa inaan ka hadlo intaa waxaa iga dheer jubbaland waa 12 jir keliya hadday gaari lahayd 24 iyo 20 iyo wax lamida intay qaban lahayd maaqaan laakiin dowladdan curdanka ah cimriga dowladda 12 sano wax weyn maaha waxa weeye waan hambalyaynaynaa halkaasaan uga gudbahayaa taa ka sokow waxaan rabaa inaan indhaha dadka soomaaliyeed
iyo dowladdaba ku soo jeediyo dowlad goboleedkan Jubbaland waxaa ka jira abaar baahsan inteennaan joogta ummadda Soomaaliyeed oo daafaha caalamka ku dhaqan dowladda dhexe iyo beesha caalamkaba waxaan ku boorinahayaa in loo gurmado oo abaartaan maanta jirta oo Jubbaland ka jirta laga kaalmeeyo way mudan tahay waa ka gudbahayaa intaas waxaan rabaa inaan si kooban wax ka dhaho arrinta Soomaaliya guud ahaan anoo isku dayaya inaan si kooban uga hadlo waanu hadalnay haddaanu nahay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed annagoo ku jirna annaga iyo intii nagala soo qayb gashayba ka tashiga iyaga ka hadlayna waanu hadalnay hadalka iyaguna wuxuu ku yaalaa warmurtiyeedkii aynu soo saaray wixii aan dhihi lahayn halkaasay ku cad yihiin mar rabo inaan hadal kale ka dabageeyo laakiin waxaan walwal badan ka qabnaa oo aynu hoosta ka xariiqaynaa hubanti la'aanta naga haysata dhanka siyaasadda oo gaar ahaan wixii aynu qornay oo ka ballannay oo ku dhaqmi jirnay oo ahayd 4 sanaba mar inay dhacaan doorasho inay dhacdo kuna aadan 15 May inaan ka walwal qabno waa nasiib darro doorashadaas hadday baaqato walow si fiican aynu uga hadalnay warmurtiyeedkii waa rajaynayaa inaysan baaqan laakiin waxaan ka baqayaa hadday baaqato waa hubaal cawaaqib xun bay Soomaaliya uga tegi kartaa waxaan aad u soo jeedinayaa kana walwalsanahay doorashadaas inaan la isku dayin inay waqtigeeda iyo qaabkii loo ballamay ay waxba iska bedelin sideedii ay ugu dhacdo doorashada ka sokow waxaan rabaa oo walwal badan ka qabaa constitutionkii Soomaaliya oo waxaa lagu heshiiyey haddaan rabno dowlad inaan noqono aasaaska dowladnimadu waa heshiis bulsho constitution baan meel dhiganay waa sida lagu bedelahayaanu ka hadalnay aynu ku dhaqanno waanu niri in constitutionkii si aan loo dhammayn loo bedelo walwal badan iyo mustaqbal xumay Soomaaliya gaarsiin kartaa waxaan adkaynayaa si cadna u sheegayaa anna qof kasta oo ku fakari karana aan xusuusinayaa war dhibaatada ka imaan kadha doorasho baaqatay war dhibaatada ka imaan kadha constitution si gaar ah loo bedelay dowlad la'aan bayna dhaxalsiin kartaa mar kasta oo walibana sidii 91kii dhacday ka sii xumaan karta ayadana waan ka hadlahayaa oo waa ka digahayaa waxaan kaloo sidoo kale aad uga xumahay oo dhaqan islaan iyo dhaqan Soomaaliyeed midnaba aan ahayn sida corruptionka maanta jira uu xargaha u goostay oo meel aan laga hadli karin iyo tusaale aan ku bixin karaba aanan garan karin corruption waa ceeb ummad dowlad rabta oo islaam ah oo mas'uuliyadihii ma ku dhaqanto dowladnimo iyo corruptionna isma galaan jeebka dowladdu waa wasaaradda maaliyadda jeeb kale ma lihin annaga wax allaala wixii aan wasaaradda maaliyadda marinna waa xaaraan dowladnimona laguma ahaan karo jeeb baanu leenahay jeebkayaga halkaas weeye wax kasta oo ka duwan ama wax kasta oo si khalada ku yimaada waa corruption dowladnimo iyo corruptionna isku meel ma galaan waxaa khatar ay ku aadan tahay oo khatar haysataa midnimadii dalka oo ay ka imaanayso qodobadan aan sheegay iyo talaxumooyin horay u dhacay oo qaybo badan oo Soomaaliya ah ka dhacay waxaan maanta ka baqahayaa qaybo kale oo Soomaaliya inay goostaan in lagu khasbo baan ka baqayaa hadday taasi dhacdo tii hore annagoo aanaan xal u helin Soomaaliyadii aynu jeclayn waanu adkaan doontaa inaan midnimadeedii helo dadkan iyo dalkanna midnimaday micno ku leeyihiin war yaa khatar la gelin midnimada iyo wadajirka Soomaaliya sida lagu socdaa
khatar ayay gelin kadhaa midnimada iyo wixii la mida. sidoo kale nasiib darro waxa weeye dalkeenna waxaa ka jira qaybo badan oo ka mida argagixiso. war argagixisada istaraatiijiyad midaysan midka jooga gobollada dhexe iyo midka calmiska jooga iyo midka jilib jooga waa qaran baanu nahay. hal istaraatiijiyo midaysan waa inaan kula dirirnaa. hadday noqoto adigu keligaa soco adna sidan baan kuugu talinahayaa waxay keeni kartaa in la kala quusto. haddii la kala quusto hawsha laysku xasdana meelay ku dhammaan doonto ma garan karo, mana fiicna. sidoo kale istaraatiijiyada la dagaalanka argagixisadana waa waxyaalo jooga iyo kan gobollada dhexe jooga iyo kan goof guduud jooga si isku si mid ah ay u socdaan. ugu dambayntii waxaan hoosta ka xariiqayaa oon dadkeenna xusuusinahayaa dowlad goboleedyo dhowr ah oo la mid ah middaan aynu joogno yaanu leenahay. goormaa u dambaysay in ay mandatekoodii sidii caadiga ahaa dadkoodii inta ay ku laabtaan ka soo tartan galaan oo ama la doorto ama ay doorashada waayaan. waxaad mooddaa dhammaan waxay hadda ku wada jiraan muddadoodii way dhaafeen, waxay ku joogaan sharci darro. waroy dadka mar haddii laysu keeno oo la yidhaahdo dawlad baan noqonaynaa ama mid federaala ama mid hoose, dadka soomaalida mana dhaqdo mana geyaan in la yidhaahdo intaad doontid iska joog. maalinka ay dhammaato wakhtigii loogu talagalay wax allaale wixii ka dambeeya ama ka ratima waa xaaraan. qofku inuu ka dagaalamo xaq u leeyahay, inuu diiduu xaq u leeyahay. waxaana weeye cawaaqib fiican dowladnimadeenna uma wado. waxaan ku boorinahayaa dhammaan qodobadan aan soo sheegay iyo kuwa badan oo dowladnimada u daran oo geesaheenna ka dhacahaya ha laga waantoobo. sababtoo ah annaga dowladnimaan rabnaa, dowladnimaa isukaaya keentay. waxa aanu ku wada jiri karro sharaf iyo karaamo ku lahaan karraana waa dowladnimadeenna oon dhowranno. sida hadda qodobadan dhowrka ah oon ka hadlay dowlad la'aan bayna gaarsiin karaan, khatar badanna waa keeni karaan. intaas ayaan ku soo koobahayaa warkii aannu odhan lahayn oo rasmi ah. waxaannu ku sheegnay haddaannu nahay intii nagala soo qayb gashay kulankan ballaaran oo safarka dheer u soo galay iyo madasha mustaqbalka soomaaliyeedba warmurtiyeedkii aynu soo saaray oo aan rajaynahayo inaan si micno leh dabagalkiisa iyo fulintiisaba u dhammaystiri doono.